بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo sanadkii 2024 yahay waxaan nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia sababtihiinba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. رئيس الوزراء إثيوبيا فدرالك إثيوبيا وحا ونقعد صدي إنه وذكرله understanding إن أي بطة كهران ميل أي دجان عيدن كودو ما دام عليه عيدن كي مريس كهاب ميل أي دجان إنك السومال لنا وحنو ابن بدن إثيوبيا يقرن كبودي سنيني إن لنوا قوسنا قرن مدينة ومد بدن المغرب waxay noo farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia sidii aanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay aqoonsadaan oo qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kilomitir xeebta ciidamadooda inuu ogolaanay deegaan ciidamadoodu waa liis waa kiro ma hadhu la siinay بلاش نما waxaan maraya arintaasi inay tahay mid labada dalba u dana si xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan inagu waxaan leeyahay badii Ethiopia waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waan naga balan qaadeen insha Allah berbera waxa ka mid noqon doontaa dekadaha ay Ethiopia soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb kamid kolba intii aanu horumarino aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha insha Allah dhawaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horeeyay ee Soomaaliya aqoonsada anaguna aanu noqono dalkii u horeeyay ee soo ogolaada 20 kilomitir badda iyo wixii aad iyo aad baa mahadsan